madaxweynuhu shaytaanka iska naaro oo waxa weeyaan ummadda ha u soo joogsado annaguna waan intayda halkan joogtay inta kale naga maqannaba waa idinku taageersanahay taageero mug iyo miisaan le baanu u muujinaynaa shirkaas iyo 7 qodob ee ka soo baxayba aad iyo aad waxaan idinku hambaliyeynayaa go'aamada fiican ee qaadateen annaguna waannu idinla qaadanay madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne ka qabo sharciga dalka ha ku tumanine tuusi sidii lagugu dhiibay u dhiib halkan waxaan isugu nimi inaanu ka hadalno oo taageero loo fidiyo shirweynihii ka dhacay gobolka Togdheer shirkaasi waa aad iyo aad u wanaagsanaa wixii Soomaaliland ku caanamaashay iminkana waa in dib loogu soo noqdaa wada hadal waxaan la isku hayo dhan ta ugu muhiimsan waxa weeyaan komishanku waxay soo jeediyeen doorashadii muddadii komishanku ay soo jeediyeen in lagu qabto oo laga wada hadlo oo la soo wada fadhiisto saddexdii xisbi qaran iyo madaxweynaha iyo dawladda la soo wada fadhiisto oo hareeraha laga soo wada fadhiisto raggii hore ka qayb galeen ay ka soo qayb galaan iminka looma baahna ayaan filayaa in dad shisheeyaa loo yeedho inay dhex galaa ya Soomaaliland waxay ku caanamaashay wada hadal oo arrimaheedii ay ku dhammaysato iminkana waxa weeyaan komishanku go'aankii uu soo jeediyey ya oo 9 bilooda ya haddii la yiraahdo wax ku dara sanad iyo ka badan ayaan soo jeedin lahaa sanadka ayuu ka badanin doorashada lagu qabto sidaana lagu faataxaysto madaxweynuhu shaytaanka iska naaro oo waxa weeyaan ummadda ha u soo joogsado oo talooyin kala soo jeedinayo culimo iyo wax garad iyo cidoo dhami wixii dadkii ka hadlayay salaadiin oo dhami waxa weeyaan dee baaq waddanka loo soo jeedinaya nabadgelyadiisa halka waxaanu ku qabanaynaa taageero aan u muujinayno ka soo shirkii Burco ka qabsoomay beelaha oo dhan lagu casuumay beesha Karaxisna ay qabsatay ayaanu halkan anagu halkan joognay imika barkayar ay ka qayb galeen shirka iyaguna aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin inteeda kalena taageeraan u muujinaynaa si mug iyo miisaanle mari ka soo baxay inaan u taageersanahay waayo beeshu aad uga qayb gelin intii ka qayb gashayna waxay muujiyeen kalsooni annaguna waanu ku taageersanahay sidii salaadiintii ka qayb gashay odayaashii ka qayb galay madax dhaqameedkii ka qayb galay iyo ciddii shirka daadihiinaysayba loo goobaabiyey ayaanu si mug iyo miisaanle annaguna u goobaabinaynaa kuna raacsannahay sida ay sheegeen cabdi haybeyga horreeyey uu sheegay in madaxweynuhu dadka u hoggaansamo arrinkana waxaan leenahay ha u hoggaansamo iyaga arrinkii komishanka arrinkii salaadiinta xisbiyada qarankuna ay isku yimaadeen culimadii dhammaan tijaartii wax allaaliyo wixii tala Somaliland ay leedahay ee wanaagsan ee la isku waafaqsan yahay yaanina ka santaagin bismillah ربي نستعين على أمور الدنيا والدين halkan oo maanta ay taariikhdu tahay 3 Oktoobar waxaan isugu nimid taageero ballaaran inaanu muujino hadaan nahay beelaha Arab ee Somaliland iyo wadamada jaarkaba dega inaanu muujino shirkii ka dhacay Burco beelaha Garxajis go'aamadii ka soo baxay iyo oo go'aamo dhaxalgal oo dad waddanka la xajacla ka qabaa ay soo saareen beelihii kale iyo salaadiintii waftiyadii ka socday Somaliland oo dhan na ay wada qaateen taasoo waddanka horsocodkiisa iyo horumarkiisa iyo walaaltinimadiisa iyo wada jirkiisa shirkaasi uu ka talinayay oo meel wanaagsan qodobada la dhigay qodobadaasoo in waddanka wada tashi iyo wixii ku soo caanamaalay had iyo jeer lagu dhaqmo uunu u badnaa halgankii soo bilaabmay ilaa daraawiishtii ilaa waqtiyadii dhexe ilaa iminka
qof waliba waxbuu ku darayey madaxtinimaduna qoriisu dhiib baa ahayd nin walbana meel iyo taariikh buu kaga tegey madaxweynaha maanta joogaa inuu taariikh wanaagsan kaga tago ayaan u soo jeedin lahaa. shirkaygan jaraa'id wuxuu daaran yahay ee aan halkan ku fadhinaa siyaasiyiin madax dhaqameed haddii aan la idhaahdo odayaal dhammaantayo shirkayga jaraa'id wuxuu daaran yahay inaannu taageerno shirkii ka dhacay magaalada burco aniga oo ku hadlaya afka madax dhaqameedka beesha aanu ka soo jeedno dhammaantayo waxaannu ku taageeraynaa shirkii halkaa ka soo baxay go'aamadii ka soo baxay ayaannu ku taageeraynaa waxau ahaa taladii somalilan ugu muhiimsanayd wixii aannu ka filaynay baa ka soo baxay tudhaddii aannu ka filaynay baa ka soo baxday mustaqbalkii somalilan wax lagaga qaban lahaa baa ka soo baxay dhammaantaya waxaannu ku taageeraynaa go'aamadii ka soo baxay shirkaa ee beelaha somalilan ee lagu soo macsuumay ay la qaateen ayaannu annaguna ku raacsannahay waxaannu leenahay dalka waa u tudheen dadkana waa u tudheen wax wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan baa dhigteen waana wixii laydinku yaqaanay aad iyo aad waxaan idinku hambalyaynayaa go'aammada fiican ee qaadateen annaguna waannu idinla qaadannay madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne ka qabo sharciga dalka ha ku tumanine tuusi sidii laguugu dhiibay u dhiib sidii laguugu hambaliyeeyey u hambaliyey haddii lagaa badiyo qabo doorashada. laba kelmadood kaga nidhaahno shirkii ka dhacay burco ee ay qabsadeen walaalahayaga beesha garxajis shirkaasoo aanu aaminsannahay inuu shir qiimala lahaa oo aad iyo aad u qiimo badan oo tudhaalo badani ka muuqday waxaannu halkan isugu nimi maanta inaannu u mahad celinno ciddii naga midka ahayd ee na matelaysay ee shirkaa ka qayb gashay waannu leenahay waajibaad aa lahaydeen baa gudateen annaguna waannu intayda halkan joogtiyo inta kale naga maqannaba waa idinku taageersannahay taageero mug iyo miisaanle baannu u muujinaynaa shirkaas